السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channelka aad naga daawanaysaan waa Alkarma Official. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambalelka furo siina share garee. maanta waxaynu ku hadli doonaa ama dhamaystiri doonaa siiradii nabiga. waxaynu ku hadlaynaa qodobo ka mid ah mucjisooyinkiisa. mucjisadii ugu weyneed ee uu la yimaado rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd qur'aanka oo la keeni waayay hal aayad oo la mid ah. mucjisooyinkaasi waxaa ka mid ah kala jabkii ay soo kala jabtay bisha 14 biyihii ka burqaday faraha dhexdooda ilaa ay asxaabta ka cabeen oo ay ugu weysaysteen. waxaa kaloo ka mid ah cuntadii aan hal saac suustameyn ee inta ku tufay alla barkeeyey ee kullugu ka cuntaysay. waxaa ka mid ah jeedkii iyo dhagixii la hadlay. nabigu sallallahu calayhi wasallam waxyaabihii uu la gaarka ahaa waxaa ka mid ah wuxuu nebiyada kiina ku khatimay uguna fadliga badnaa. waana ruuxa ugu horeeya ee arladu soo tufta qiyaamaha. waa ruuxa ugu horeeya garaacidda albaabka jannada iyo geliteedaba. waa ruuxa ugu horeeya ee shafeecada laga aqbalo. waa nebiga loo soo diray jinni iyo insiba. ilaahay ayaa ku dhaartay noloshiisa. qalbigiisu ma seexan jirin. gadaashiisa ayuu wax ka arki jiray. wuxuuna yidhi qaluu dahrii lilmalaa'ika. dhabarkeyga ugu wareega malaa'igta. mugdiga ayuu wax ka arki jiray. hoosna ma uusan lahayn nuurkiisa daraaddiis. korkiisa kuma degi jirin tixsigu. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu jeclaa wixii carfa oo dhan, wuxuuna necbaa wixii uraya. habeenkii qiyaamuleyl ayuu istaagi jiray ilaa luguhu ka bararaan. markaas baa Caaisho dhihi jirtay, maxaad naftaada u kalifaysaa? ilaahay wuu ku dembi dhaafee. wuxuuna ugu jawaabay, abraduu bidacaam fa ina alxaara gayra dii baraka afalaa akuunu cabadan shakuura. miyaanan ahayn addoon shukrinaya? wuxuu ah mid aan qaadan sadaqada laakiin hadiyada qaata. wuxuu ku ducaysan jiray, allaahumma yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik. ilaah quluubta gedgediyow diintaada qalbigayga ku sug. wuu edeb badnaa, wuuna xishood badnaa. wuxuuna yidhi, addabanii rabbii fa axsana ta'diibii. ilaahay ayaa i edbiyey oo wanaajiyey edabteeda. nabigu sallallahu calayhi wasallam magacyo badan ayuu lahaa, waxaana ugu fiicnaa maxamed iyo axmed. wasalaamu allahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. واليوم منك الهوى والقلب قد بان